السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي أدوم هالسنتين ما أنت وقميص مقال كانوا حربا إن نجاه الله ويل سوماليات ومجلس اللي رادو محمد كولون مينيابوليس أي إلى سو حريري waxaa saameyn ku yeelatay baaritaanka lagu waday arintii lacagtii laaluushka ahayd ee loo geeyay xeerbeegtida. haddii aan wax yar soo koobo sida ay arintaasi u dhacday, waxaan ogeyn in 7 qof oo Soomaali ah oo lacagtii cuntadii caruurta loogu talagalay xilliga coronavirus-ka ee Feeding Our Future ay ku socotay, kadibna xilligii la filayay xeerbeegtida in kiiska gacanta loo geliyo oo ahayd 3 bishii hore ee la soo dhaafay, ayaa habeenkii ka horeeyay oo 2 bishii Axadda mid kamid ah xeerbeegtidii loo geeyay lacag $120,000 oo waliba waraaqay ay ku dhex jirto oo la leeyahay haddii aad not guilty tiraado intaasi oo kale ayaan ku keenaynaa. xeerbeegtida guriga waa uu ka maqnaa, qof ehelkiisa ayaa loo keenay. qofkii markii uu xeerbeegtida yimid booliska ayuu soo wacay, kadib FBI-da ayaa baaritaan ku bilowday. kadib markii guryahooda la baaray eedeysanayaashii muddo ku dhawaad 3 toddobaad ay socotay, 26 bishii hore waa tii dacwad lagu soo oogay 5 qof oo Soomaali ah, 3 salalatay Cabdimajid iyo gabar ladan la yiraahdo oo lacagta geysay oo ka timid Siyaalan. haddaba marka FBI-da intii ay baaritaanka wadeen, waxa ay baareen dad fara badan oo arintan ay u maleeyeen inay ku lug leeyihiin. marka wiilkan ayaa kamid ah oo Minneapolis degan oo xitaa gurigiisa la baaray, gaarigiisina laga qaatay ilaa haddana uu ka maqan yahay. bal sidii arintan ay ku dhacday iyo xilliga gurigiisa loogu yimid iyo ilaa hadda gaarigiisa uu ka maqan yahay ayaan rabaa bal inaan wax ka weydiiyo. Maxamed soo dhawow, bal arintan goorma ayay kugu dhacday oo guriga lagugu yimid oo baaritaanka gurigaada lagu sameeyay? maalin June ahayd taariikh 12 oo maalin Arbaca subax morning 7 morning imaada ayagoo ah u qiyaasay markaa rag dhan 16 qof oo hubeysan. marka ma FBI ahaayeen? FBI ahaayeen. marka xilligaasi guriga miyaa joogta adiga? xilligaas si caadi guriga jibaaba la jiifay xaafadda dhan. marka albaabka si xoog u soo qaraacay ayagoo qaylinaya. markaa soo kacneen albaabka ka furnay mise waa ciidankan. kadibna guriga dadkii jooga waa la xirxiray, banaanka loo saaray, guriga cabaar lagu maqnaa, kadib baana la soo xareeyay. albaabka yaa ka furay, adiga mise qof kale? gabar baa furtay. markii aragtay waxaan qoryaha soo taagaya way ka carartay. marka qolkeeda kale orod ku gashay. marka qayladii iyo buuqii baa soo kacay. albaabka fiiriyay mise nimankaana qoriyo markaa albaabka kasoo horeeyaan oo FBI-na calaamadooda iyo jaakadooda wataan, gacmaha kor taagay, gacmaha laab gadaal soo soco. waa soo socday, waa la jeefiyey. guriga joogna waa lasoo ururiyay iyagana. marka inta aysan guriga gudaha u galin, ma wax waraaqa oo warranty ayay idin tuseen oo leeyihiin waraaqdan ayaan wadanaa oo rabnaa gurigan inaan baarno? marka hore intana la xirxiray kadib oo qofka loo socday anigu ahaa, laakiin dadka kale looma socon. marka guriga soo baareen kadib oo dadka kale qol lagu xareeyay waa aniga fadhiga la keenay. kadib wax la sheegay waxa u yimaadeen iyo warqadda wataan iyo sida wax u doonayaan. maxay ku yiraahdeen marka? waxay u yiraahdeen inaad nala hadasho iyo inaad turjumaanka u keeno kee ku roon. waxaan sidii ama dhiiqa ku geliyaa nimanka howl badiyin. turjumaanka ay keeni kartaa ka ardayna loo dhexdhexaadinayo. marka wiil bay keensadeen oo isla ayaga tirsan Soomaali. waa gartay, ma telefoon ay soo geliyeen mise wiilka cawowba la socdayba? wiilka si caadi u yimid. waa la wacay, waxaa la dhahay 20 minutes noogu yimid. waa la adreeska loo diray. 15 minutes buu ku yimid asagoo markaas baajkiisa iyo jaakadiisa wixii wato u yimid. waa gartay, marka ma intii guriga aan baaritaan lagu sameyn ayaa adiga wareysi lagula yeeshay mise markii guriga la baaray kadib ayaa wareysiga lagula yeeshay? marka guriga la baaray oo waxba laga waayay adiga 3 saacadood kadib aanay wareysi la yeeshay. marka ku dhawaad 3 saacadood ay guriga ku jireen? 3 saac guriga baarayeen ilaa 3 saac aniga wareysiga aduu 6 saacadood baa qiyaas karaha ilaa aduu 7 soo galeen, laakiin aduu 12 ay baxeen. marka ma guriga dhexdiisa lagugu wareysanaya adiga? guriga dhexdiisa. maxaa lagu weydiiyay markii wareysiga lagugu bilaabo? baadii su'aalo way kala duwan. mar dambe wuxuu soo daadegi doonaa ujeedadooda, laakiin markii ugu horeysay su'aashii la weydiiyay waxayd waa u booqatay profeelada xeerbeegtida ama madaxda America ama dadka dowladda ugu sarsareeyo ama dadka gacanta ku haya. sababa profeelada u booqatay maxay ahaayeen? marka maxay ka wadaan arintaasi? profeeladooda ma wax meel booqatay jirtay mise waa su'aal iska weydiinayeen? wallahi waxa uu gartay waabsiga iska ahayd. waxa la yaabay inta fajacay social media waqti badan ma helo. haddana waqti u galana waxa laga yaabaa dadka yar daawada. laakiin waa gartay, marka su'aalahaasi hordhac ah kadib ujeedadooda waxay u socdeen ay ku weydiiyeen maxay ahayd? marka ugu dambeysay ujeedada yimaadeen waxa la yiri xaafadda la yiraahdo Moon la yiraahdo waa erida markaas wax ka dhacayeen. waxa la yiri waa eridaas wax badan ku aragnay erida adoo marmaraya sababta meesha u maraysa sababta u joogto ma sheegi kartaa.
haye waxaa ku yidhi magaalada ma iska wareego haddaa wareegayno aragtanoo socdana uber baa ku shaqeeya uber driver anaga lug kastaa galaa meel kastana galaa meel noo go-ana meel noo xadidan oo dhiga meesha ma geli kartaa ma jirto marka waxaan u shaqaysanayaa marka meesha lagu weydiinayo xaafadda waa xaafadii xeerbeegtida ay deganeed oo lacagta loogu geeyay miya iyo soomkeedaas oo dhan bahaa waa gartay marka maxay ku yiraahdeen waxaad ii sheegtay in gabadha ladan ay wax kaa weydiiyeen arrintaas maxay kaa weydiiyeen gabadha ladan sawir bay wateen marka gabadha ladan ma garanayo taysaan ma garanayn gabadha ma garanaysaa wuu yiri gabadha waa fiiri maya ku yiri sababta waxaa moodaya dad aqaaday customerka marka ay soo dash camera gaarigu xiran marka waa fiiri wejiga qofaa garanaya maya ma garanayo gabadh kale weydiiyeen oo iyadan airportka tunnel manaalka dadka dhex maraan sawir iyadoo taagan sawir laga qaado kale gabadha ma garanaysaa maya ku yiri labadaa gabdhood baa lis waa gartay marka sababta ay ku weydiinayeen ma kuu sheegeen marka gabadhan ima sheegin sababta aniga ii weydiinayeen just on gabadhaas xiriir inaa la leedahay gabadhaan ma aragtay gabadhaan song waxa gaarigaaga ma qaadatay gabadhaan waa hadashay taleefonkeeda ma haysaa misla sheegaysatay maya afeer maba aqaanin waxaa la sheegaystaa afeer waa gartay marka waxaad ii sheeg guriga markii la baaray ma wax alaabahoy ka qaateenaa jirta guriga mase way baareen waxba way ka waayeen guriga shaksiyan iyagu sawireen wateen gabti baagagan oo wax lagu geeya xeerbeegtidoo kale iyo wax kale tira guriga waxa iyagu doonayaan dhan way ka waayeen wax oo shay kale ay ka qaateen ma jirin marka waxaad ii sheegtay gaarigaadii aad ku shaqaynaysay uberka oo weliba ahaa gaari aad lacag kusoo qaadatay oo aad bixinaysay oo dayn ah in gaarigii furihiisii lagaa qaatay arrintaasi sidee ku dhacday markii waraysigu uu dhammaaday kadib miyay yidhahdeen gaarigan waan wadanayna waa soo baaraynaa sidee arrintaasi ku dhacday waxa uu sheegay waxa ku yiri maadaama aniga dareewal nahay waxa dhacay dareewaladan aad baa loo laayaa oo ku dhibaato badan baa nagu dhacdo soo marka gaariga dash camera ku xiran oo u talagay in kay wax dhacaan soo waxa dhacay gaariga dash camera ku jiro soo waxa dash camera qaadanayna ma noo seexay sabaqada keenay oo seexay 2 days kala maqlaanayna ay u dheen okay aday baara ku dhax waa soo baaran kartaa wuu qaatay kadib markii si isku ogeyn inuu qaato abaad kadib adiga la fadhiyay mobile wuxuu qaatay mobiladeeda iyo gaariga furihiisa waxa gaariga furihiisa waa gartay waa la baxay waaran kala loo soo qaatay gaariga galabtii maqribadii oo magaalada ku maqan oo gaariga waa la qaadanay waa imi anoo guriga soo gelay waxa gaariga toobin saaray oo sii socdo waa gartay gaarigu marka ma midkii aad ku shaqaynaysay markaa oo mase waa mid kale oo guriga ku yiilo familku lahaa maya waa kii dhan oo Honda iska leedahay waa gaari CR-V oo cusub ah 2023 oo kaas bay la tageen guriga gaariga lagama qaado waa gartay markii hore waxay yiraahdeen kamarada un baan qaadanaynaa markii dambe waaran la yimaadeen oo macal gaarigii macal kamaradii way isku qaateen kamarada markii hore ba la tageen laakiin markii dambe gaariga loo soo noqday qaateen mobiladaadana markii hore ka qaateen aniga gabadha wiil kale oo Canada nooga yimi oo marti noo ahaa oo isagana week joogi rabay oo asna mobile soo la qaatay aniga waxa laga qaatay mobilkayga iPad yar oo haystay gabadha waxa laga qaatay mobilka wiilkaasna mobilkiisii waxaan wada la tagay marka ilaa ay hadda mobilada iyo gaarigii ma la maqan yihiin mise mobilada waa la idin soo celiyay wax la soo celiyay mal oo hadda oo muddo bil ku dhawaad ay ka soo wareegatay wili gaariga gacan kuma haysan iyo mobiladini wax contactiya ma idin siiyeen marka meel aad kala xiriiri kartaan lacala iyaga haddii aad u baahataan lambar bay noo reebeen oo lambarka centralkooda ah oo xafiiska weyn ah lambarkaas soo wacta bay dheheen laakiin iyaka Canada ka yimi baa xoogaa qaylqayliyey oo xoogaa isku taagtaagay wuxuu yidhi safaaraddeeda ku dacweynaya daris meeshan waa imi booqashaa ku yimi kiiska aniga iyo waxaa hore ma ogin marka waxay weysa darawaa inta dambe supervisorkiina rabaa yidhi supervisor wuxuu siiyey numberkiisa marka wuxuu la hadlay 3 maalin kadib uuna noqon rabay wuxuu tigidkayga waa kana laaqashadii waxay yiraahdeen marka ilaa jimcaha marka arbacay qaadanay ilaa jimcaha u qabteen isagana sabti uu noqonay jimcaha waa galabteedii wuxuu ku yiraahdeen alaabta sheebarka wili kama soo dhamaana dariskana noqon anaa ku soo diri doona waa gartay marka wiilkii uu iska baxay isagoon telefonkiisa helay waa gartay marka waxaad ii sheegtay inaad looyaro la xiriirtay oo xitaa hay'adda xuquuqda muslimiinta u doondo ee care aad la xiriirtay arrimahaas maxaa kaaga hirgalay oo kaaga dhaqan galay
qolada Soomaalida marka hore u tagay qolada Soomaalida xoogana kiiska hadda ragga qaarkood way ka baqeen oo iskaga hareen arrintan qoladaas saddexdaana arrintan ma keli karo ugu dhahay mid baa u tagay wuxuu yiri marka ku soo eedeeyaan kiiska hadda waxa fiiriyeen waxba eeda ku ooleen warqada warranty oo geeyay oo kiis number ku qoran waxay wax hadda dacwo ku taala ma jirto laakiin in case hadii uu soo dacweeyo oo warqad ku keeno ku xiraan marka kiiska ku geli kara inta ka horeysa ay imaan adoo uu soo eedeeyay marka sidii gaarigii iyo mobiladii laga qaatay maalintii guriga la baaray oo interviewga laga yeeshay kadib wax xiriir oo ay kula soo sameeyeen ma jirtaa ma wax xiriir ah ma soo sameeyeen wata arintu adiga kiiskan maxaad kala socotay laaluushka markaasi ka hor in arintan ay dhacday iyo waxaasi ma la socoto ma ka warqabtay channelka uun baa ka dhageysan jiray waxa update-ka waddanka dhacayo oo mooye laakiin wax oo si official adiga ahayn mooye cid kale oo ka warhayo ma jirin marka anaga marka wax dhacaan oo kale kiiskaas oo kale qofka soo xidhaa cilmi awaaraha loo geli channelkiisa uun baa laga fiiriyaa update-ka wixii markaa yaal watahay baarayaasha ayuu FBI markii wareysi kula yeelanay su'aashaasi ma ku weydiiyeen kiiskan ma maqashay maxaad kala socotaa ma ku weydiiyeen exactly way weydiiyeen kiiskan weligaa ma maqashayna waxaa jiraan way jirtaa oo qeeri bas drab bulshada dhan taala waa wax Soomaalidu Soomaalidu soo heetaa qeeri marka waa wax suuq dhan yaala community-ga diyaana magaalada diyaana cid kasta oo ogtaa qeeri wata waxaad sheegtay marka Uber driver in ahayd oo aad wali jirtay muddo bil aad shaqalaan ahayd oo hadda shaqo kale aad raasatay kadib markii wax waraa ka waysa ayagii gaarigaada inay ku soo celiyaan marka sidee marka hadda noloshaadu ay ahayd muddadaas bil ah oo shaqalaanta aad ahayd walaal muddada bilka guriga muqtay dhalinyaro saaxiibaa markaan qof soo mar magaalada mooye ku imaado qofkaasi mooye laakiin inta kale gurigun baa fadhiyay bilasha dhan ay u go'naa wax kasta ay u go'een soo dhalinyarada saaxiib qaar way iga dabareen soo marka dambe waxay noqotay in aniga shaqada hadda lafteeda u bara ku imaadaa ku noqdaa soo marka dambe waxay noqotay in shaqadan soo abujiro hadda ku jiro watahay aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed waa kaaga mahad celinaya sidaad ila soo xiriirtay iyo wareysigan adiga ogolaatay in aan ka qaado I hope inaad mobiladaada iyo waliba gaarigaada aad dib u heli doonto wixii kale soo kordhana waa wada xiriiri doona aad iyo aad u mahadsan tahay insha Allah